Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta ama sheekadeennan maanta waxay ku saabsan tahay cigaal shidaad iyo dhegdheer. Cigaal shidaad oo ahaa nin aad u fulaya iyo dhegdheer ayaa si kedis iskaga hor imanaya. Gabadha halkan socotaa waa dhegdheer, waxayna iskaga socotaa sidar ilaahaya. Waxaana ka hor iman doona cigaal shidaad, bal waxaynu arki doonaa waxa dhaca. Halkan ayay iskaga hor yimaadeen cigaal shidaad iyo dhegdheer. Dhegdheer waxay ku tiri xageed ka timid nin yahow, ma aniga ayaad ii dilaysay waad ii socotay. Kadibna waa uu naxay oo waa uu hoos ayuu u foorarsaday wuxuuna yidhi maya maya kuma aan dilaynin ee hamoodin inaan adiga kuu socday, aniga ayaa iska socday waayo cigaal shidaad waa fulay. Wadnaha ayaana hoos u dhacay markuu sida u arkay dhegdheer. Durba hareeraha ayuu daymoonayaa oo wuxuu isleeyahay haddaba ma orodaa. Dhegdheer waxay ku tiri waxba aniga ha ii jeedsanina, ii sheeg ujeedadaada, waadigan mididiisitee soo aniga ima dilaysid ayay ku tiri. Kabacdi cigaal shidaad wuxuu ku yidhi maya lagama yaabo, mididani waxaan ku qalanayay xoolo ee raalli ahaw, adiga si kadiisa ayuun baynu iskaga hornimidaa. Kadibna dhegdheer waxay ku tiri waxaa anigu kaama qoraaye warka caddayso. Kabacdi waxa uu ku yidhi cigaal shidaad maya saad moodisid maaha xaalkuya waa uu ka duwan yahay, fadlan iga raalli ahaw, anigu waddo kale ayaan u socdaaye, fadlan ii banee aan iska maro meesha cigaal shidaad oo ay ilmadu ku soo taagan tahay fulinimo awgeed ayaa hortaagan dhegdheer. Dhegdheer waxay ku tiri maya waan ogahay inaad aniga ii dilayso ee haddaba hadda ayaynu kala calaf qaadaynaa ee keeni roon reerka ha u soo hadho ee waxba ha biqina nin baa tahay kaalay. Kabacdi waxa uu cigaal eegay hareeraha wuxuuna doonayaa in uu cararo markuu arkay marxaladii oo xun. Kadib way ka nixisay, kadib ninkii cigaal orod ayuu isa sii daayay wuxuuna u sii ordayaa xaggan iyo xaaskiisii. Ninkii cigaal waxa uu ku socdaa xawaare aan innaba caadi ahayn, wuxuuna doonayaa inuu naftiisa la cararo oo la gaadho tuuladiisii yarayd. Dhegdheer aayar ayay iska soo daba socotaa oo waxay og tahay inuu yahay ninkan nin aad u fulaya, waxna kuma falayso oo aayar ayay iska daba socotaa. Halkan ninkii cigaal ahaa uu inta xooggiisii ordaayo ilaa iyo xaafadiisii oo ayna wax nafi ku hadhin haddii uu naf la gaadho waaba hadduu fiican yahay. Kadib wuxuu soo ordo oo uu soo xiiqaa cigaal, waxa uu soo gaadhay xaaskiisii oo joogta gurigiisa horteeda. Kadib waxay ku tidhi cigaalow maxaa kugu dhacay oo ku soo eryaday. Kadib wuxuu yidhi aniga oo halkaa dariiqa iska socda oo si ammaana u socda ayaa waxa iga hor timid dhegdheer. Waxaanay igu tidhi qoortaan kaa goynayaa ee haddii aad nin tahay kaalay oo iska kay celi. Kabacdi waa aan baqay ilaa iyo xad, waxaana isku day inaan soo cararo inkastoo ii diiday in aan ka soo ordo oo ay igu tidhi ma dhaqaaqi kartid. Gabadha ayaa ku tidhi oo ma aad dishid adigaaba nine. Kadib intuu naxay oo uu salka dhulka dhigay oo gariiray oo fadhiiso ku yidhi gabadhiina ayuu wuxuu ku yidhi aan ku fahansiiyo. Dhegdheer wuxuu yidhi waa gabadh wejigeeda oo keliya aad ka cararayso iska day inaad u dhawaateen lagumana dhaco in loo dhawaado aduu dilis baad ka hadlaysaa ayuu ku yidhi. Kadib gabadhiisa ayaa la yaabtay oo ku tidhi carruurta ayay cuntaaye adigu fulaysanida. Intuu istaagay ayuu ku yidhi aniga waxay doonaysaa inay cunto ee keliyaata imay dilaynin. Kadib wuxuu ku yidhi haddaba waxaan doonayaa meel aad igu qariso waayo waa ay soo daba socotaa oo way soo ordaysaaye. Kadib waxay ku tidhi waxba meesha ma soo socdaane cigaalow fulinimada iska daa, cidna kuma dhawee carruur ayaaba bannaanka ku ciyaaraysaa. Wuxuu ku yidhi waxaad rabtaa inay cunto oo aan sidaa ku dhinto, hadda waxaan doonayaa meeshii aan isku qarin lahaa ima i siinaysaa meel aan isku qariyo nafi iguma jirtee. Kadib waxay ku tiri waar nin raga iska dhig oo orod oo gabadha iska soo celi. Cigaal weliba uu naxsan yahay waa uuna baqayaa lagamana yaabo inuu dib u laabto. Cigaal orod ayuu gurigii ku galay oo gudaha guriga ayaa u galay, gabadhiina bannaanka ayay iska tagtay oo carruurtii ayay u tagtay. Muuqaalkeenani intaas ayuu ku dhan yahay. Waxaan rajaynayaa in aad nagu soo biirtay.
Haddii aadan hore noogu soo biirin, fadlan hadda nagu soo biir si aan muuqaaladan iyo kuwo ka qurux badan oo kale aan kuugu soo gudbino.